السلام عليكم دمانتين داوديال kusoo dhawaada barnaamij kale oo aynu kaga hadli doono verkeerstation ama astaamaha dariiqyada. Maanta waxaan kusoo qaadan doonaa su'aal ay dad badan isweydiiyaan oo ku saabsan sidee ayaan u xafidi karaa ama si fudud aan ugu dhamayn karaa teoriga ama aan isku diyaarin karaa imtixaanka teoriga. Waxaan halkan idinku hayaa kaarar yaryar oo mid waliba astaan kamida astaamaha dariiqa ay tilmaamayso macnaheegana hoos ku macnaynayso. marka waxay la tahay inay wax badan idin ka caawin doonto dadkiina bilowga ah ee raba inay bilaabaan akhriska teoriga. astaanta ugu horeysa waa astaan tilmaamaysa calaamadii aynu hore u soo dhiganay ee stop far waaweyn ku qoran macnaheega iyo sababta ay u taagan tahay. halkan waxa ku qoran waa inaad istaagtaa meeshan iskana fiirsaa bidixda iyo midigta baabuurta ama gaadiidka maraya ayaa kaale. calaamada yar hoose ee kaarka ku sawiran markasta Österreich ku qoran tahay waa qaabka wadanka Österreich loogu qoro dariiqada. macnaha qofka kaarashan ka baranaya labadaas wadanba hal mar ayuu wada baran karaa macnaha. calaamadan waa calaamadii aynu hore u soo dhiganay ee tilmaamaysay inaad iska jirto iskana hubiso baabuurta jidka ku jira. calaamadan kaarka ku qoran waa calaamad kale oo tilmaamaysa calaamad kaaga digaysa halis ama isgoyska kugu aadan inay ka jirto rest for links xeerkii aynu hore u soo aragnay. gaariga midigta ayaa kale gaariga bidixda. iska jir calaamadan waxay tilmaamaysaa meel uu tareen ka gudbayo. waa calaamad tilmaamaysa waddo ka dhaxaysa dadka lugeynaya iyo baaskiilka. tanna waa calaamad kale oo tilmaamaysa waddo u kala qaybsan dadka lugeynaya iyo baaskiilka. meesha aad ku aragto calaamadan waa meel baaskiil uu mari karo oo aanay baabuurta ama gaadiidka intiisa kale loogu talagelin. waa astaan kale oo tilmaamaysa waddo baaskiil. haddii aynu intaa kaga gudubno tusmadii koobnayd ee ku saabsanayd kaarasha, waxa kale oo aan tala ahaan soo jeedin lahaa qofka raba inuu si fudud ku barto teoriga inuu sameeyo wax kasta oo macquul ah oo uu ku baran karo. haddii ay tahay kaarasha aynu soo sheegnay oo aad ka akhrisan karto si fududna ugu baran karto, haddii ay tahay YouTube inaad ka baran karto ama casharada YouTube ka dhigan karto, macluumaadna ka raadin karto, iyo midda saddexaad oo ah inaad theory appka ama appka aad iskagu diyaarinayso imtixaanka aad akhrido in badan. habka marka aad ka akhrisanayso teoriga ama casharada teoriga ah waxa wanaagsan inaad maalin walba u qoondayso in go'an oo aad akhrido. tusaale ahaan maalin walba waxaad go'aansatay inaad 30 su'aalood qaybto ama aad xafido 30kaas su'aalood maalin walba inaad joogtayso ayaa laga rabaa hal imtixaan aad raaciso. markastoo aad imtixaanka ama akhriska ku celceliso waxaad ogaanaysaa in marba marka ka dambaysa qaladaadkaaga uu soo yaraanayo ilaa aad ka gaadho null failure ama wax qalad aanad samaynin. intaasi waxay noogu eeg warbixintii koobneed ee aynu kaga hadlaynay qaabka ugu fudud ee aad ku xafidi karto astaamaha ama verkeersstationka dariiqa. qofkii u baahan kaarashan yar ee laga akhrisanaya calaamadaha ama astaamaha dariiqa commentiga ha ku soo qoro. insha Allah waan soo sheegi doonaa qaabka ugu fudud ee uu ku heli karo.